warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo rag ka tirsan shabaab oo saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose. waray shabaab soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in dagaalyahanadoodu ay u suura gashay inay la wareegaan saldhigyo dhowr oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan waxiga deegaanka Bariire. waxa ay sheegeen in saldhig ay gacanta ku hayaan ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda ay la wareegeen dagaalyahan ka tirsan al-shabaab isla markaana in muddo ay gacanta ku hayeen. shabaabku waxa ay sheegeen in sidoo kale ay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidanka Bangrafta Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka deegaanka Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayna la wareegeen. dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya waray soo saartay ay ku sheegtay in ku dhawaad 30 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku dishay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. taliyaha lugta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada AMISOM ayna dileen ku dhawaad 30 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab. waxa uu tilmaamay in al-shabaab ay ku guuldareysteen weerar ay soo abaabuleen ay ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan saldhigga deegaanka Bariire ee gobolkaas. waxa uu tilmaamay in al-shabaab laga adkaaday dagaalada ka soconaya gobolka ayna ku wajahan yihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi si loo soo celiyo xasiloonida iyo dawladnimada Soomaaliya isla markaana loogu dulqaado shabaabka dhibaatada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose.